Bismillahirrahmanirrahim. Kulanti habboon daawadayaal meel kastoo aad joogtaan halkan waa shabakada wararka Arabsiya News. Waxaad ku soo dhawaataan qodobada ugu doorka roon ee wararkan idin hena saaxiibada qiimaha badan oo waxaa ka mid ah Turkiga oo si carar leh u muujiyay dareenkiisa ku aadan shirka Djibouti ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Somaliland maxaa keenay xilligan carada Turkiga. Waxaan idin soo gudbin doonaa warbixin gaar ah oo ka hadli doonta ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo howlgal kula wareegay deegaano dhowr ah oo ay maamuli jireen ururka Al-Shabaab. Djibouti iyo Kenya oo ku loolami doona xubinta kursiga joogtada ah ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo sarkaal hore uga soo shaqeeyay Soomaaliya oo ay qaramada midoobay u magacaawday xil cusub. intaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada ugu doorka roon ee wararka shabakada Arabsiya News aan idin hena saaxiibayaal daawadayaal goor u diyaar garoow iyagoo inta ka faahfaahsan oo aan idin baqaadno haddii ay weyn u qadaro. waa maalmo Arbaca taariikhdu waxa ay ku beegan tahay 17 bisha 6 sanadka 2020 saaxiibayaal marka hore waxaan idinka codsanaynaa inaad subscribe ka noo saartaan oo aad ka mid noqotaan saaxiibada ku xiran wararka warbixinada muuqaalada haddii jaarsada joogtadana halkan ugu soo baahino noqo daawadaha ugu horeeya hela markan qadar adeega bulshada ogtahay macmiil adeegyada cusub ee ku soo kordhisay shirkadda hoggaanka waa shirkadaha socdaalka geyiga ee bariga galbeed sanadkani cusub ee 2020 shirkadda bariga galbeed oo ay horeyba shacabka ku dhaqan geyiga uga barteen safar raaxa leh adeeg hufan iyo sidoo kale ammaano lagu kalsoon yahay. markale kulan habboon saaxiibayaal daawadayaal aynu ku bilaawno dowladda Turkiga ayaa waxa ay si carar leh ay uga hadashay isla markaana ay u muujisay dareenkeeda ku aadan shirka wada hadallada ah ee Soomaaliya iyo Somaliland ee dhawaan ka furmay magaalada Djibouti ee caasimadda dalka Djibouti. dowladda Turkiga ayaa qarsan weyday dareenka cadhada leh ee ay ka qaaday shirkii Djibouti ay martigelisay taasoo u muuqatay in quwado kale ay kala wareegeen wada hadaladii Soomaaliya iyo Somaliland oo ay garwadeenka ka ahayd dowladda Turkiga sanadihii ugu dambeeyay. Kani Turana oo ah safiirkii hore ee Turkiga u fadhiyay Muqdisho waxa uu isweydiinayaa halka ay ku dambeysay arrimaha ay hore ay ugu heshiyeen gudiyada farsamada Hargeysa iyo Muqdisho ka socday miyaa la qubay wixii hore ayuu ku soo qoray bartiisa Twitter-ka. doorka Turkiga ay ku lahayd wada hadallada ayaa ahaa fududeynta madasha ay labada dhinac ku wada hadlayeen waxayna Somaliland in badan Turkiga ku eedeysay inaanan dhexdhexaad aysan ka ahayn arrimaha Somaliland iyo Soomaaliya. 14 bishan aynu ku guda jirno magaalada Djibouti caasimadda dalka Djibouti waxaa si rasmi ah kaga furmay shir ay isugu yimaadeen hogaamiyaasha labada dhinac sidoo kalena waxa in muddo ah magaaladaasi ka soconaya shir uga soconayo gudiyada farsamada ah ee magacaabeen madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Somaliland kuwaas oo loo igmaday in guud ahaan howlaha wada hadalka ay la wareegaan si natiijo wax ku ool ah ay kaga soo saaraan. waxaana shirka iminkan ka soconaya magaalada Djibouti caasimadda dalka Djibouti garwadeenka ah oo uu wakiishay wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geyle. faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya howlgal qorsheysan oo ciidamada militariga dowladda federaalka Soomaaliya qaybtooda 12aad ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. howlgallada ayaa waxa ay ciidamadu ay ku gaareen deegaanka la yiraahdo Warxoole oo hoostaga degmada Ceelbuur halkaasi oo ay gacanta ku hayaan dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab. wararka ayaa waxay sheegayaan in ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya si nabadoon kula wareegeen deegaankaasi kadib markii ay isaga baxeen ururka Al-Shabaab. taliyaha guutada 15aad qaybta 12aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya Sarayo Guuto Mascuud Maxamed Warsame oo goob fagaara kula hadlay dadka deegaanka ayaa ugu baaqay in isdejiyaan isla markaana ay ka shaqeeyaan sugidda amniga guud ee deegaanka. sidoo kale waxa uu tilmaamay inay sii wadi doonaan howlgallada tan iyo inta Al-Shabaab laga saarayo gobolada Galgaduud iyo Mudug ee bartamaha Soomaaliya. xaaladda ayaa haddan lagu soo warmayaa inay tahay mid degan waxaana lagu soo warmayaa sidoo kale in ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya fariisin cusub ay ka sameysteen duleedka degmada Ceelbuur ee gobolka Mudug.
dowladda Jabuuti iyo Kenya ayaa maanta oo Arbaco ah u tartami doona kursiga aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee qaramada midoobe iyadoo dalka guuleysta uu ku matali doono guud ahaan qaaradda Afrika. Labada dal ayaa in muddo ah tartan adag oo diblomaasiyadeed ugu jiray kursigan, waxaana natiijada ka soo baxda ay saameyn ku yeelan doontaa iskaashiga gobolka. Sanadkii tagay Kenya ayaa heshay aqlabiyadda xubnaha ka socda Midowga Afrika, taasi oo gelisay rajo ah inay ku guuleysan karto kursiga golaha ammaanka ee qaramada midoobe. Jabuuti ayaa sidoo kale haysata taageerada ugu badan ee dalalka Islaamka ah iyo Jaamacadda Carabta. Xogayaha guud ee ururka iskaashiga Islaamka ah ee loo soo gaabiyo OIC-da ayaa hore ugu booriyay dhammaan dowladaha xubnaha ka ah inay la garab istaagaan dowladda Jabuuti taageero buuxda. Jabuuti iyo Kenya cidii ku guuleysata kursigan waxa uu ku beeri doonaa wadamada Mexico, India iyo Canada, Ireland iyo Norway oo noqon doona xubnaha cusub ee UNSC-da la yiraahdo. Laga soo bilaabo 2007 ururka Midowga Afrika wuxuu adeegsadaa habka wareega ah iyadoona gobol kasta uu helo wareegiisa si uu ugu tartamo halka kursi ee joogtada ahayd ee Afrika ku leedahay golaha ammaanka ee qaramada midoobe. Faahfaahin dheeraad ayaa ka soo baxaysa qaraxyo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo maanta ka dhacay duleedka deegaanka Leego ee gobolka Shabeellaha Hoose. Qaraxyadan oo ahaa miinada dhulka lagu aaso ayaa waxaa la sheegay in lala egtay gaadiid ay wateen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya iyo kuwa Mareykan ah oo ku wajahnaa deegaanka Leego ee gobolka Shabeellaha Hoose. Dadka deegaanka ayaa waxa ay warbaahinta u sheegeen inay maqleen dhawaqa jugta qaraxyada iyo rasaas xoogan oo ka dambeysay, ha yeeshee aysan cadeyn karin khasaaraha ka dhashay maadaama goobta loo dhawaan karin. Al-Shabaab ayaa durba sheegtay mas'uuliyadda qaraxyadaasi, waxaana baraha internetka ah ee taageera lagu daabacay in qaraxyadaasi lala beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda sida gaarka ah u tababaran ee Bangarafta la yiraahdo iyo kuwa Mareykanka ah, isla markaana ay khasaare u gaarsiiyeen sida Al-Shabaab wararka ay daabaceen ay ku qoreen. Saraakiisha ciidamada dowladda federaalka ah ee gobolka Shabeellaha Hoose weli kama aysan hadlin qaraxyadaasi. Wararkii ugu dambeeyay ka soo baxayaan waxay sheegayaan in xaaladdu ay tahay mid degan, isla markaana ciidamada dowladda iyo kuwa Mareykanka ay socdaalkooda iska sii wateen. Weli waxaad daawanaysaan wararka Arabsiya News. Haddii aynu eegnana shil khasaare geystay ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho. Shilkan oo ahaa mid gaari ah isla markaana uu ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa waxa uu ka dhacay isgoyska Fagax qaybta xigta degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir. Shilkan ayaa yimid kadib markii gaari nooca carigadiska ah oo ka yimid dhinaca isgoyska Sanca uu fariingoostay uuna burburiyay goobo ganacsi, waxaana goobjoogayaal ay sheegeen in shilka uu ku geeriyooday hal ruux, laba kalena ay ku dhaawacmeen. Qofka shilka ku geeriyooday ayaa la sheegay inuu ahaa wiil dhalinyaro ah, labada qof kale ee dhaawaca culus soo gaareen waxaa labadooduba ay ahaayeen kuwa wadada maraya, iyadoona dadka dhaawacmay durba loo qaaday mid ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho. Ciidamo ka tirsan kuwa booliiska Soomaaliya oo ku sugan isgoyska Fagax ayaa tagay halkaasi, waxa ayna qabteen oo ay gacanta ku dhigeen wadihii gaariga, iyagoona geeyay saldhigga booliiska degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir. Magaalada Muqdisho ayaa waxaa mararka qaarkood ka dhaca shilalka gaari ee sababa khasaaraha isugu jira dhimashada iyo dhaawaca iyo burburka hantiyadeed, waxaana taasi loo sababeynayaa wadooyinka qaar ee magaalada Muqdisho oo aad u burbursan iyo gawaarida oo darawalada mararka qaarkood si xawli ah ay u kaxeeyaan. Haddii aynu eegnana sarkaal ka soo shaqeeyay gudaha Soomaaliya ayaa iminkan xogayaha guud ee qaramada midoobe waxa uu u magacaabay taliye cusub. Xogayaha guud ee qaramada midoobe Antonio ayaa u magacaabay General Gefil Yaw taliyaha cusub ee ciidamada nabad ilaalinta ah ee ku sugan gobolka Abyei oo ay ku muransan yihiin labada Suudaan. Generaalkan ayaa marka soo shaqeeyay dalka Soomaaliya isagoona noqday taliyaha qaybta ciidamada nabad ilaalinta Soomaaliya u jooga ee howlgalka Midowga Afrika.
gobolka Abyey oo ay ku muransan yihiin labada Suudaan ayaa waxaa ku sugan ciidamo ka socda qaramada midoobay oo ay ka mid yihiin ciidamo ka socda Ethiopia maadaama soodinta la leeyihiin dalka Suudaan. Generaalkan la magacaabay ayaa waxa uu ka mid yahay guddiga difaaca Ethiopia gaar ahaan waaxda injineeriyadda iyo dejinta qorshaha ciidamada ee wasaaradda gaashaandhigga, waxaana uu ka mid yahay saraakiisha khibradda ciidamada u leh dalka Ethiopia. Sanadkii 2015 madax waxa uu ka noqday qaybta hogaaminta howlgalka ururka midowga Afrika ee Soomaaliya ee loo soo gaabiyo magacooda AMISOM, waxaana hadda shaqada loo dhiibay ay tahay mid adag oo u dhaxaysa labada Suudaan ee kala go'ay. guud ahaan warkii aad ka daawanayseen shabakada wararka Arabsiiniyo saaxiibayaal daawadayaal waa inaga inta aad ku mahadsantihiin daawashada warkan midkiisa xiga. Intaynu dib u kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa saaxiibada qiimaha badan oo sidaa iyo nabadgelyo.